As- Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta kusoo dhawaada ethical hacking tutorials. Maanta waxaan qaadan doonaa tutorialka koowaad. Homeka qofka muxuu u baahan yahay tutorialkan sababtoo ah hacking has been a part of computing for almost 5 decades. Marka waxay leedahay hacking waa anshax, in la ilaaliyo anshaxa oo qaababka wax loo jibiyay waxyaabahaas inay anshax leeyihiin. Tutorialska marka waxay kuu gareynayaan inaad noqotid professional aspiring to learn the basic ethical hacking and make a career on ethical hacker. Inaad noqotid qof security-ga kombiyuutarada ku takhasuso, aqoonna u leh qaabab kala duwan ay hackerska wax u dhibaateeyaan. Sidoo kale prerequisite ay jirto maadadan intaada barin ka hor waa inaad taqaanaa ama daawataa tutorialskan. Sidoo kale waa inaad taqaanaa fundamental concept of computer inaad taqaano computerka waa inaad wax ka taqaanaa. Sidoo kale waa inaad ka taqaanaa qaababka ay u shaqeyso network environment-ga, qaababka ay u shaqeyso waa inaad wax ka taqaanaa. Haddii aan marka fiirin overview hacking waa maxay? Hacking waxaa loo yaqaanaa waa part of computing waaye for almost waa 5 decades ilaa 5 qaybood. Sidoo kale waa discipline. Adiga hacking markii laga hadlayo ethical hacking markii laga hadlayo marka hore waa in hacking laga hadlaa. Hacking marka waa in computerka la jibiyaa, qofku waa inuu jabsadaa wax loo yaqaano isagoo ah unauthorized access, isagoon waxba sharci u lahayn inuu wixii jabsado waaye. Marka computer expert marka kuwa takhasus ku leh computerka who does the act of hacking is called wax loo yaqaan hacker loo yaqaan. Hacker waa maxay marka? Hackers are those who seeks knowledge to understand how system operate, how they are designed, and then attempt to play with this system. System qof uu sameeyay ayuu fahmayaa, wuxuu raadinayaa aqoontii lagu sameeyay, kadib wuxuu raadinayaa meelo laga gali karo systemkaas si uu data ugu soo helo ama wax ugu soo jabsado. Types of hacking-ka oo lagu sameeyo waxaa ka mid ah website hacking-ka. Taas micnaheedu waxay tahay marka in website-kii qofkii lahaa laga dulqaado oo site-kii la iska maamusho sida software-radiisa iyo database-kiisa iyo interface-kiisa kale. Waxaa jira xiriirada network hacking. Network hacking waa maxay? Hacking a network means waxaa loo jeedaa gather information about network adoo isticmaalaysa using tools like waxaa la isticmaalaa tools oo ka mid yahay wax loo yaqaano telnet, nslookup, waxaa ka mid ah Bing, waxaa ka mid oo kale inta netstat etc. wixii lamid ah. Email hacking sidoo waa sidoo kale. Ethical hacking-ka wuxuu soo hoos galayaa inaad raadisid weakness-ka ama meelaha jilcan ee computerka uu leeyahay ama network uu leeyahay adigoo sameynaya wax loo yaqaano penetration testing oo tijaabinayo computerka meesha laga soo gali karo waxaas. Ethical hacking markaad ogaatid meesha computerka laga soo gali karo waa inaad xalisaa. Waxaa loo yaqaano password hacking ayaa jiro. Kan marka ujeedadiisa waxay tahay password hacking-kan waa in recovery lagu sameeyo oo daboolka laga qaadaa secret password database kugu qarsoon ama aad ku save garaysatay ama adiga any account aad leedahay waa in recovery lagu sameeyaa oo secret password from that has been stored in or transmitted by computer system. Laba mid waaye data kaysan in password-kaaga laga helo ama markaad galaysid adoo meel kale u diraa la helo. Computer hacking waa maxay marka? Waa process of stealing computer ID. waa processka lagu xadayo ID computerka. Waxaa loo jeedaa username-ka yani password soo kale. By applying hacking methods adigoo adeegsanaya methodyada ama qaabab kala duwan ee hacking-ka saas daraadeed waxaad helaysaa unauthorized access to your computer. Marka laba nooc ayaa jirto, advantage iyo disadvantage. Advantage waxaa ka mid ah oo hacking-ka waxaa ka mid ah scenarios qidada ayaa ka mid ah. Waxaa ka ah inaad daboolka ka qaadid recover lost information data lunta inaad soo heshid oo dib soo celisid, especially qaas ahaan in case you lost your password. Markaad password-ka heshid oo kale oo lumisid oo kale inaad dib u soo heshid oo adeegsatid. Sidoo kale to perform penetration testing waa inaad tijaabisaa
systemku inaad tijaabisaa si aad u ogaatid network inuu xoogan yahay, computerku uu leeyahay network security adag. Sidoo kale waa inaad dhigtaa wax looga hortagi karo inaad samaysid, sidoo kale si aad u ogaatid inay shaqeynayaan meelaha laga soo galaa. Sidoo kale waa inaa computer systemkaaga uu lahaadaa prevents malicious hackers from gaining access. Okay, advantage waxaa ka mid ah waa inaad massive security breach aad samaysid mararka qaar oo sharciyada noocaas adagoo kale aad ku dhacdid, inaad unauthorized system oo private information aad samaysid, privacy violation inaad dad shakhsiyaad ah waxyaabahooda kale loo kala aad gashid, humble system operation inaad samaysid, Daniels officer tahay. Marka kuwaan waa weeraradii dhacay, marka waa sharci darro, waana disadvantage, marka waa inaad ka fogaanaataan. Purpose of hacking, qof markuu hacker gareynayo sababaha uu hacking gareynayo waxaa ka mid ah waa laba nooc ay isugu jirtaa. Noocna waa positive, noocna waa negative intentions. Marka waxyaabaha ka dambeeya waxaa ka mid ah just for fun, qof iskiga macnaha ninka saaxiibka waa ka jibay ciwaankiisa oo kale, ama qoftaan oo kale waa iskiga day ama wax noocaas oo kale wax ku jabsado. Show of status oo kale inuu qofka kor wax u jibiyo. Still important information, inuu data muhiim ah qofka uu xadayo kale. Damage in the system, qofka inuu systemka kale dhaawacayo kale. Humble privacy, wax shakhsi inuu data sidoo kale money extortion inuu sameeyo lacag xadid inuu sameeyo sida bangiyada waxaas uu xadayo. System security test inuu sameeyo to break policy. Marka dhammaan kuwaas waxaa loo yaqaanaa waa hordhaca maadada aan insha Allah soo jeedin doono ethical hacking ka qaybtiisa. Marka waxaan aragnay hadda types of hacking waa aragnay, advantage of hacking waa aragnay, disadvantage of hacking waa aragnay, purpose of hacking waa aragnay. marka insha Allah la soo qeybaha dambe xasanidin waxaa iloobin inaad like saartid commentina ka bixisid.